isbitaal way maanaga fadhiisatay walaalow adiga fiiri wax dhintay baa tahay horta kaalay isbitaalka markii ugu horreysana xaaskii keen mogido ya wax dhintay maa tahay waaba waxa keliya un la yaabaybo fiiri war naagahan oo kalaa meesha la keenaaniyo ditore mar alla markaa ku arko aad baan farax war iga waran xaaskeyga iga waran ditore aad baan maaragtay horta marka hore kugu mahad celinaya waana xaaskaaga 2 carruur ayay ku dhashay ya ani maxaa kuu sheegay ya alla waxay 2 carruura bay dhashay xaaskeyga idiisay alla horta adiga horta naagtan carabka dheer la niyo meesha maxaa u keentay niyo ya waa naagtan naag iga yaabiso oo kula kabtamaya caadi isgadigaa ya ditore waxaanba ma aragtay aad farxad baan la dabaqay ya iga war xaaskeyga iyadan waa dhimata xaaskaaga allaha u naxariisto xaaskaaga ma fahmayo wax allah wuxuu sheegay maxaa xaaskaaga allah u naxariisto waa dhimatay waxa waaye waan badbaado weyna anaka laakiin carruurta ayaan badbaadin waxay tiri ditore meesha isbitaala mase anaa maaragta anaad ugu dheelaysaa ditore war keliya xaaskeyga aan ku keenay meeshaan haddana waa dhimatay meesha ma isku dheela mase waa iska dulqa ilaahay baaratay qaata xas ditore ma arkaan aniga waa markii iigu dambeysay maaragtay oo su-aal ku weydiina xaaskeyga mayaa dhim iska sawir waxa waaye adduunyadan maaragta wax waliba waa la arkaa annaga runtii waa isku daynaya badbaadin laakiin soo badbaadi weyna xaaskaaga beled weyna lahayo kadhig beled barwaaqo sanaa siiran taleefonaa soo dhac urbal sug baa la hadle halo waa walaalkii umale oo walaalkii kurbo seeta aad baan walaalo u damaqsanayo waxa waaye maaragtay dhibaato baa soo gaartay walaalow waxa waaye xaaskii iga dhimantay si aan sheego walaalkii si wax u dhaceen maxay tahay waxaa maaragtay aad baan niyo maaragtay wax allaalo waxaan ku hadlaayo xataa ma garanayo mateo arrintaas mar hore maan ogeyni kurbo aad baan niyo walwalsanayo aad baan maxay tahay adiga ii sheeg aad baan walaalo u walwalsanaa xaaskeyga waa dhimatay 2 carruurna bay iga tagtay 2 carruurna ma aragtay runtii aad baan maaragtay ugu rafaadsanayo waayo ilmo waa ogtahay ma kor aqoonin waa arrin layaab loo igu timid walaalow runtii wallaahi meeshan waa iskaga danyaraahay wax lacagana ma hayo maaragtay dhibaatada iska kay haysee dhibaatada maaragtay iska dishay mida kale wallaahi taleefonkana lacagtii waa kasii dhammaanaysaa walaalo waa ku salaama soo gaar haddaad soo gaari karti walaalo soo gaar walaalo soo gaari kartid soo gaar irsaaqada ilaaha bixiye ilaahayna irsaaqad ilaahaba keli baan weydiisanaya walaalkii maxay tahay meesha qaylada maaragta taleefonka ku qaylilays gurigaan kaaga jiro waa moogido waxaan adiga maxaa kugu jiro waxa la hadlaya waa walaalkay sooma walaalkay waa waxa la hadlaya dib warkiisi walaalka waa ninkii ani adigana kala tiri gaar moogido na adiga walaalkay ma adana maaragtay weli aad soo afkaysatay ya walaalkay xaaskiisa ka dhimato maxay iga galaanay ya walaalka waa ninkii adiga naka adiga uu nagu sameeyey waa waxa xaaskiisu ku weymaanta walaalkaa maaragtay ya walaalkaa waxaa rabtaa meesha inaad ii keentay maaragtay adan adiga anaa ka tashana or iska bax balaayii kugu dhacday ilaahay maaragta kusii qaadiye ya wax allaalo waxaan u sameeya maaqaani walaalkay igu cijisan walaalkay ya kumiya meeshaan suldaanow talaan kugu nimid muxuu ahaay suldaankii xaafadan oo adiga ninkan meesha fadhiya ujeed xaaskiisa ka dhamatay 2 carruuran maaragtay meesha ay joogaan marka waa dhibaato aad u weyna maaragtay suldaan war aniga waxaad iigu timid maxay tahay dadka magaalada oo ay idil maadar gurigeyga soo gelinaysa haddii xaaskiisa ka dhimato 2 carruur ma gurigeyga keenaysaa markaadi ya waryaa dadka ninka qabiilkiisu raadi aniga mar dambe taa ii keeni waryaa
warmeesha laga keen meesha waa waxaan wax waalii waay waa bismillah kuwaas iimaanka allah ka qaaday laga wad aadan liskuma hadle yaa alla ilmaha caruurtan dhidhina ilaahay baa iigu maqan un cid kale oo iigu maqan mala aabo aabo wallaahi kuwaan ilaahay ila koriyo ma fahamta wax allaala suldaanka dhammaan xaafadda maaragtaa bismillah qabiilkiisa raadi ku lahaa ilaa laakiin joogo waa ilaahay maa wax idii toogsaa haddaan jidadka idiin istaagin koomba la wareegin hooyaday maaragtay han biyo fura wallaahi magaciigaba korba lama yiraa kurba alla aabo sidaa cadcadiyin keliya quruxda maaragta ilaahay idiin days yaa abo dharka idin gelihaysu abba wacan baanahaayo xaalkana sii korina wax kale oo maaragta haya ma leh yaa masaasadooda sii kartaa aabba ii caabo aabo ii caabo madikune walaabo yaa aabo aabo kii kalena waxaa waaye fiiro laba xabo anaa labeeyey walle aniga ii go-day masaastooda dhaqaa biyo ushuba caano malano intay u keena caanaga iska jirtee aabo biyo iska xawo waxaa bees waa la waaye geedka waa oo shaydaan miyaa acuudu billaahi min ashaytaan arajiim ilmaha la iga waxyeelayn sugbaan dhinacaan hooyadiin waa umalaynaa tan dhulka dhigeen wala aabo ruuxan ilmahan fiirsada ilmahana iigu daran wax kaste bal aan wax ii gaareen ilmihi ilaahay maaragtay ii kuwaan ii wax igama gaarsiiyo yaa wax masaasadaas qaaday suldaanka aniga waay suldaan nimadeydan waxa dadka ka lunsan suldaanka inuu wax weliba qaban kara ma fahamte war dadkan qabiiladooda ha loo raadiyo ma fahamte ya dadkan qabiilay leeyihiin daday ka dhashteen dadkii ka dhashteen lagu raadiyey marka suldaanka waxay maxay tahay aniga mid baan ku sheega suldaanka aniga xaafadda waa laakiin qofkii wax ku dhacaana qabiilkiisa ha lagu raadiyo ya maxay indhaa igu soo taagaysaa aniga indhaada kala koreeyama adduunku nacay ya hadda horta ku sheegaane ya war dadkan qabiilada iyo dadka war adiga qabiil mau ku waalata aniga suldaannimada waxay tahay maaragtay dadkan inaan suldaan tahay aniga waxaas waxawaaye waa waxyaabahan ku qoslo ma fahamte aniga qabiilka waxba igama gelani suldaanka anaga ayaa maaragtay xaafadna suldaanka war suldaan haddaanu nahay anaga maaragtay dadka maaragtay isirkooda lagu raadiyo dad oo maaragtay xataa qabiiladooda fiicnayna xataa waa arkay ya war meeshaada naga fadhi wax allaala waxaa tiini waa qabiil kuwaash qabiil alle kugu dil waa abaaro tugsadaaye wari bal igu ridi iduu ilaahay wax idinkugu dhiibo wallaba caruura wallahi hayaa yaa iduu ilaahay iduu wax idii dhiibo nimayo igu rido ma tuugsan leen maanta haddii maaragtay xaaskayga ay noolaa laheed kuguma igu khayr allah ku sii calmadoobo yaa magaalada kismaayin waxaa ku jeclaa mataqaana dad oo waxaad ka helaysaa maaragtay oo muslimiin oo khaalisiin ah yaa magaalada kismaayiga waa magaalada keliya dad soomaalidu waxay beenta sheegaan ulahay ninba waa kistiisa kismaayiga kistaada maxaa loo dhiyay kuwaasa dad fiican nadiif waa ii damqadeen labadaas canugu iigu damqadeen ilaahay adikana idiin damqad yaa dadka reer kismaayo waa dad nadiif ah maaragtay ayagaas haddayna ahaan lahayn ya maanta mana waa xillaa ya warbal igu rid waxa allaalo maaragtay waxaa maaragtay wixii khayr idinkugu jiro ya
الله خير الله كسي خير الله كسي دكانك الله كو بلالي دكانك الله كو بلالي دكانك الله كو بلالي يا مساجد حتى ودو علي شيء يا ودي استاغ مارت حتى waxaan la yaabay ya gudoomiyaha dhalool oo baarta noola soo doortayba ma ahanbo nin si fiican u shaqeeyo war ya alaabtaaniyo maalin waliba murankiita iska daysid alaabtan qaad gudoomiye waxba kama gelin meeshaan ya waa alaabtaa meesha kuwaniyo amaaniyo warnimay wax ii dhiibo wax ii dhiibo nimeyo laba caruura haystaa war annagaaba isku dhegananiyo naga tag yaa rasuulallahi gudoomiye ku haysiine ya war qaad alaabtaaniyo adiga niyo war kuwaan igaaba ku mashquulsana iga wata balaayo idinku dhacda ka tagay kuwan qabriga cabaan fiiriy shood faanta cabuyaana malaa kismaayo qamri lagu cabay kuwaniyo kuwa khayr qabaa ku jira kuwa qamriga cabo ma ila fiican kuwa wajigooda xeebta la sheegayo inta leysa warkana igu ridi rabayso igu rid khayr allah ku siiyo war kuwan aada xashiish ma caboyaan xashiish waa malaynaya waxaad rabtii cabay adeeroo sii yaqaay khayr allah ku sii khayrna heli maysid naar ku dhac anadinku meerno annaga ku meerno mugdi kama haddaan halkiigan ku dheershiista xataa waa ii keenayaan bas meeshooda caanaha ku siinaano igurid ya khayr ku sii ilaahay khayr ku sii dadka reer kismaayo nadiif waa wallahi khayr allah ku sii dad gob waa gob kismaayo axmed madoobo xataa u sheegay inay laba canug ay maaragtay ii dhaleen u sheega nimaya u sheega ninkaas waa nin maaragta soomaalinimada jecel ya labadaas canugaa maaragtay hooyadood ka dhimatay maaragtay anaa labalabeey wallaahi meeshooda caanaa ku siinaa reer kismaayana waxooda ii keenaan iska dhaaf nidinkuma nadirine waadikaani bi meeshiin iskiga horda baaba walaahi idima gaartee caaniin iska cawa inanku fikiro dhulka